aan ugu magac darnay la kulanka abwaaninka waxa idin soo gudbiyay oo idin sahlay gudbiyaha media codka shacabka SSC waxa idin daadihinaya qoraaga weyne SSC ee Cawl Ismaan jaamac ku magac dheer Cawl Durde qarnigii la joogaba qof baa loo qorshoocaa dadweynuhu qadariya fanka qorshihiisa suugaanta dadka lagu qanciyaa maanta waxa hooyga codka shacabka SSC inoogu martay abwaanka weyn ee Yuusuf Xasan Dheere oo ku magac dheer Yuusuf Celin waa abwaan qora la xamiista heesa gabiya intaba ilaahay u sahlay waxa maanta waqtigu noo saamaxay inaan wareys yar oo kooban ka qaadno abwaan waan kugu soo dhaweynaynaa codka media shacabka SSC ama santahay waxa weeyaan waxa jirta waxaynu ognahay xaaladda gobolada aad ka soo jeeday ee SSC waxay ku sugan yihiin waxa dhacday dhowr bil ka hor sanad guuradii loogu talagalay dabaaldegyadii ay ka soo wareegay intii maamulka la sameeyay waxa igu maqaalaha in aad diyaarisay gabayo heeso bal abwaan horta waxaan jeclahay inaad taariikh nololeedkaaga noo soo koobtid kadibna wixii dambe aynu ka ambaqaadno anigu ku soo koobayo waxaan ku leeyahay anigu taariikh nololeedkayga dugsigii dhexe waxaan kasoo baxay Argabo secondary school Burco jaamacadda 2 sanadood oo la foolay ah kabacdi waxaan galay fanka iyadoo dheegaygii jiray ana wax badan ka qaadanin kadib wadankii iska burburay waa soo qaxay yeman ayaan muddo 13 sanadood ayaan joogay وهذا بدل ما كسمي برنامجين كسمي نعبا سويتنا وان كسو قدي سعودي عربية سوقلن سعودي عربية برنامجين كدياري ولو أنا أختي سامحني صبرني له أدنى وعن كسونا هاي سعودي عربية abwaan si wacan baan u garanay ma laga yaabaa bal in aad heesahaagii aad ugu tala gashay sanad guurada SSC ama gabay ahaan ama hees ahaan bal inaad wax naga maqashiisid aadiya bal wax naga maqashiisa bal ama gabay ama hees hadba kii aad jeceshahay bal noogu horeyso waxaan jeclaan lahaa waqtigu aan ii saamaxaynin aniga aan ku tala gelin oo diyaargarin caawa in aan halkan idinka soo jeediyo barnaamijka isaga waanu garanay waxaan jeclahay caawa in idin soo bandhigo heestii la oran jiray ma taqeen baliga soo waan garanay abwaan heestaasi waa hees ku saabsan bilicda iyo suugaantu waxay leedahay dariiqo tilmaan iyo astaan waa gartay abwaan anigoo taatax raacaya baan waxaan tiri hees la yidhaahdo ma tagteen baliga soo waan gartay abwaan heestaas waxaa la yidhaahdaa ma tagteen baliga soo bal wax naga xasuusi bal waan bilaabayaa waxaa weeye abwaaniinta badan ee badda iyo beriga iyo buuraha ku noolow haaqi baa idin hadhay belo lama ammaano been laguma heesee baaritaanka quruxdii abligii badh baa hadhay ma tagteen baliga sool iyo dahablamoodii baxsan bileesan joogdheer horta weli ma barateen bashradii hargeysiyo beerluladii hiiraan barbarkaa ka eegtaba quruxda way ka badisaa indhaha baalashoodiiyo suuniyaasha loo bogo tintaa buro la siiyo bilicdeeda dheehda bili iyo ayaan wacan maaha baali naagood waa boqorad gaari bisinkii qur-aankii oo lagu dhalay burgaha midi nimaan 100 halaad iyo baarqabkooda huri karin waxay tiri ma baran karo qof kasta isfiimee beri la isku qaad baqayo ku dhacaa burjigeeda mari waa tilmaantii aan ka bixiyay murtidii aan ka baashay ninkii been u haysto kaalay booqo oo arag barada ay ku dhaqan tahay taasi waxay ahayd heestii ma tagteen baliga sool abwaan waxaanu la soconnaa in aad albeeno badan ku diyaarisay Saudi Arabia
albanadaas oo arqaad gacanta ku haysid ama ha noqdeen kuwa aad qaaday oo dadku aad qaybisay ama ha noqdeen kuwa aad qortay oo aan weli ku heesin maxaad imsa alban baa ku diyaarsan ama imsa heesood baad qaaday oo aad gacanta ku haysaa oo quseeya ama SSC ama Soomaali weyn oo dhan maxaad markaa abwan heesahanad haysid sidee baad doonaysaa inay adduunka u gaadhaan ama u horumaraan waa su'aal wanaagsan jawaabteeduna ay sugan tahay anigu heesahadaan ku idhaahdo waxaan hayaa 40 heesood akthar way ka badan tahay waan garta okay gabayaan hayaa heesaan hayaa SSC ku saabsan gabayaan hayaa SSC ku saabsan daadooyinkii berigii soo maray bal gabayada aan adigoo mahadsan bal gabayga aanu dib gabayga ma laga yaabaa inaad bal wax naga yara maqashiin gabaygan waxa la yiraahdaa shaambad waa 114 shaambadood waa garta anigoo ka taxaaya gabaygi darbadaalay 114 ka darbadood waan garanay waxaan tiriyay gabay la yiraahdo shaambada oo 114 shaambadood okay gabaygaas waxaan tiriyay 2009 muxuu quseeyaa markaa gabaygaas wuxuu quseeyaa gobolada SSC iyo dhibaatooyinka taagan maanta bal wax naga yara maqashii bal gabaygaas aan din bilaabo waxaa leedahay shirka dhacay shidadan soo baxday iyo shaacan dami waaye shirshooraha waxaa lagu aqoon in maanta lagu sheegay kuwa magaca shaansheeyey baan shaambad suraya deegaanadaydii shaxda iyo sharaftii laasxaano shisheeyaha kuwii soo heshay ee shilinka soo qaatay ciigii fidhaystay baan ragow shaambad suraya shacabkii daraawiish ninkii shabeeglihii saaray shabaabkoodii oo ninkii shookiga u hooyay shaaraca rasaas kula dhacay baan shaambad suraya shalay baradka ay moodin inay shacbax baan ahay shaashlaha libaax oo wax badan shimasha hoosiifay oo shaaribtaa wuxuu gasho iyo shidooyinkood waayay shu'uuntayda kii soo gala iyo shabakadaan daasho shiraxyada intaan gooyo baan shaambad suraya fu'aad shaama reerkii ku dhacay oo miyuu sheeg xaabsade shakaa naga galay bay shalay yidhaahdeen ee qaybina shirkaa laga eri waa ka shaamidee sharaftaydii kuwii iibsaday baan shaambad suraya abwan ma intaasa waxaan jeclahay inaan mar aan chance u haysto idin dhamaysto waad mahadsantahay abwan aad baanu gabaygaaguna noo cajabiyey bal waxaad ku jirnaa gabagabadii media codka shacabka SSC maxaad shacabka SSC intiisa damiir kale maxaad kula talin lahayd waxaan u dirayaa fariin waanu kaa qayban ay qoraal ku tahay heesta SSC aan usoo diyaariyey bal wax naga maqashay iyada laftigeeda waxaan ku leeyahay dadkeena sare kacay saboolhaadka waayaha waxa uu ku sugan yahay inay samdheeyaan reerba meel samaystaan waxa aan saburo oo Soomaali midowgeed saadaasha geliyoba suurtoobi weydi darwiishow sidee tahay Soomaali bana hadday sii siyaadana sol iyo sanaag cayn meeshaasaan ku suganahay markaa waa heestii sol iyo sanaag cayn abwan waxa weeyaan waqtigaadna hawl baad haysay marka waqtigaan inoo wada saamaxayn marka abwan horta aad baad ugu mahadsan tahay maanta janiska yaraadna siisay balse waxaanu dadweynaha shacabka SSC u sheegi doonaa in aan usoo wadno heeso uu abwan Yuusuf qoray ama uu hayo waqtiyada dambe ee nagu soo socda hadii Ilaahay na gaarsiiyo ayaan idin soo gudbin doonaa wixii albamaad uu diyaarayo oo isaga u diyaarsan